kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 2 bisha May sanadka 2021 barnaamijkeena maanta waxaanu ku eegi doonaa Jubbaland oo shaki badan ka muujisay hadalkii uu baarlamaanka ka horjeeday madaxweyne Farmaajo Al-Shabaab oo nabadoon ka afduwatay degmada Raagaceel wiil Soomaali ah oo laba walaalihiis ah ku dilay dalka Mareykanka daawadayaal qodobadaas iyo qodobo la mid ah ayaan barnaamijkeena maanta ku faaqsi doonaa ee ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan hadalkii uu baarlamaanka ka horjeeday madaxweyne Farmaajo ee ahaa in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo wareysi siiyay mid ka mid ah warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan wali wareejinin mas'uuliyadii amniga isagoo ballanqaadkiisu shalay ku tilmaamay marin habaabin waxa uu sheegay in madaxweynuhu looga fadhiyo in amniga guud ee dalka uu ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha Rooble maadaama meel kasta oo dalka ka mid ah ay ciidamo isor fadhiyaan sida uu sheegay wasiir Cabdi Xuseen wasiirka ayaa tusaale u soo qaatay magaalooyinka Muqdisho Jowhar Beledweyne iyo gobolka Gedo oo ay isku hor fadhiyaan ciidamo ka wada tirsan dawladda isla markaana Rooble uusan wali awood u lahayn inuu kala qaado wasiirka warfaafinta Jubbaland wuxuu cadeeyay in aysan ka soo qayb gali doonin Jubbaland shirka ka dhacay Muqdisho inta Farmaajo uu ka wareejinayo mas'uuliyadda amniga qaranka isla markaana la kala qaadayo ciidamada isku hor fadhiya gudaha caasimadda Muqdisho ururka Al-Shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay gudaha u galeen degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyaga oo ka fuliyay weerar sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ciidanka dawladda ee ku sugnaa deegaanadaasi ayaa gabi ahaanba isaga soo baxay kuwaasi oo haata ku sugan magaalada Muqdisho wararka ayaa sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay beegsadeen guriga nabadoon Axmed Jilcaani oo ku yaalay degmadaasi iyagoo horey u sii kaxaystay nabadoonka Jilcaani ayaa ahaa nabadoonka guud ee deegaanada hoos yimaada Raagaceel sidoo kale Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay dhacdadaasi oo ay sheegtay inay dishay nabadoonka oo ay ku eedeysay inuu ahaa sargaal ka tirsan dawladda Soomaaliya Jilcaani ayaa ahaa nabadoonka guud ee deegaanada hoos yimaada Raagaceel sidoo kalena Al-Shabaab oo war ka soo saartay dhacdadaasi ayaa sheegay inay dishay nabadoonka oo ay ku eedeysay inuu ahaa sargaal ka tirsan dawladda Soomaaliya qoraal ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay inay gubeen laba gaari oo nooha ah oo uu lahaa marxuum ma jiro wali wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda oo ku aadan weerarkaasi iyo dilka loo geystay nabadoon Jilcaani oo si weyn looga yaqaan Shabeellaha Dhexe weerarkan ayaa ku soo aaday iyada oo badi ciidamadii militariga ee ku sugnaa Raagaceel ay soo galeen magaalada Muqdisho kuwaasi oo ku biiray ciidamada mucaaradka ee ku sugan caasimadda dalka kana soo horjeestay muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne Farmaajo in Soomaaliya ayaa habeenkii Jimcaha ee magaalada Kansas City ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ku dilay laba wiil oo walaalihiis ah xilli ay ka soo laabteen salaadii taraawiixda sida ay sheegeen booliska qoysaska iyo booliska ayaa labada wiil ee la dilay ku kala sheegay Cabdiwaahid Cabdulcasiis oo 16 jir ahaa iyo Cabdiraxmaan Cabdulcasiis oo 14 jir ahaa qoysaska ayaa sheegay inay ahaayeen walaalaha ka yar Hanad oo dilka u geystay booliska ayaa looga wacay xaafadda ku dhow wadooyinka 8 Street iyo Oliver Street abaara 12 habeenkii Jimcaha laguna wargelay inay toogasho ka dhacday sidoo uu sheegay afhayeenka booliska Kansas City Captain Dave Jackson markii ay goobta yimaadeen waxay arkeen meydka labada wiil oo ay xabado ku yaalaan isla markaana yaalo dibadda aqalka ay degnaayeen booliska ayaa sheegay in dilka lagu tuhmay eedeysane lagu magacaabo Hanad oo 25 jir ah habeenkii Sabtida ee xalay ay israsaasayeen dhex martay booliska waxaana lagu dilay nin hubeysan oo loo maleynayay inuu yahay Hanad hase yeeshee booliska weli ma aysan shaacin magaca iyaga oo sheegay inay dib ka soo sheegi doonaan labada wiil ayaa ahaa kuwa aad looga jeclaa bulshada Soomaalida iyagoo ahaa
xaafidul qur'aan salaadaha taraawiixdana ka tujin jiray masaajidka Al-Taqwa ee Kansas City. qoyska dhibanayaasha ayaa sheegay in Hanad uu sidoo kale u hanjabay xubno kale oo ehelka u ah, waxayna intaasi ku dareen inay haata isqarinayaan iyagoo noloshooda u cabsanayo, sababtoo ah weli ma caddo in ninka ay boolisku dileen uu yahay Hanad, sida laga soo xigtay bulshada Soomaalida qaarkeed. qoyskan ayaa horey ula kulmay dhacdooyin murugo leh, iyada oo hooyada iyo aabaha labada wiil ee la dilay lagu sheegay inay horey iyagana loogu dilay isla magaalada wax ka yar 10 sano ka hor. daawadayaal, barnaamijkan waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. intaan barnaamijkan mid lamida aynu ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.